ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa goob fagaara ah maanta ku gubay container qamri ah kaasoo maalmo ka hor lagu qabtay gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Qamrigan oo lagu gubay barxadda iskuul booliisiya ayaa waxaa amray maxkamadda gobolka Banaadir isla markaana la sheegay in baaris lagu wado ganacsatada keentay magaalada. Jenaraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ah taliyaha laanta canshuuraha bariga ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu kaga digayo ganacsatada Soomaaliyeed in hantidoodii ay geliyaan waxyaabaha maanka dooriya. hay'adda inta wuxuu raaciyay in dawladda Soomaaliya aysan marna raali ka ahayn in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka la keeno waxyaabaha maanka dooriya. muddo badan aan ka digaynay in ganacsiga qofka Soomaaliga ee ganacsatada ah oo ku dadaalo inuu xoolihiisa si xalaala waxna ugu gato dadkana uga gato inaanu lacagtiisa uu leeyahay oo Rabbi siiyay oo dadka ku dhibaatay maanta lacagta inta la eg hantida inta la eg qofka u guuray inuu lacagtiisa ka soo bixiyo ee uu ummadan boqolkiiba boqol islaamka ah ku fasahaadiyo arrintiisa diintu waxay ka tiri Rabbi waanu deynaynaa xisaabta aakhira ayaa sugaysa laakiin annagu ma yeelayno mana yeeli doono in dadkeena loo soo gudbiyo wax noocaas oo maandooriyaha oo adduunyo aakhira muxuu hayto dhibaato u keenaysa abnigay wuxuu dhimaysaa ummadan islaamka oo Soomaal walibay wuxuu dhimta intaas oo dhan oo dhibaato ah inkastoo maanta la gubay container qamri ah ee laga soo dejiyay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho haddana waxaa jira waxyaabaha maanka dooriya oo qamriga ka mid yahay in lagu dhex iibiyo gudaha magaalada Muqdisho.